munaasabada gudaha furaya barnaamijka shaqo qaran ayaa maanta ka qabsoontay xarunta gobolka saaxil ee magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay barsaabka gobolka saaxil maayirka degmada Berbera iyo maareeya ku-xigeenka dekada Berbera iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay ugu horeyna waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay barsaabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan duqa degmada Berbera iyo maareeya ku-xigeenka dekada Berbera waxaana dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen barnaamijka shaqo qaran iyo jir ahaanba maxaan ku nin u dhisan noqon karo adduunyada haddii loo fiirso dadka madaxda ka ah nin walba dalka uu joogo shaqo qaran buu ka soo maraa marka taariikhda la eego ee adduunka dadka tartamaya la eego maxaan ku dhahay siifiyadooda marka la akhriyo cid walba waxay soo martay training shaqo qaran ah shuruudaha la isku xidhaabay cid walba ka mid ahayd markii hore ee Soomaaliya dilkii la odhan jiray cid aan shaqo qaran soo marin ma jirin nin walba shaqo qaran buu soo mariyay ama macallinimo ha ku qaato ama difaac qaran ha ku soo qaatay nin walba 2 years buu soo mariyay oo maxaan ku dhahay hawshaas soo galay ama hal sano ayuu soo maray nin walba qayb ay kaga soo beegnayd tii oo kale maanta waa hawl aad iyo aad muhiimad gaara runtii qarankan u leh dhalinyartana u leh inta inaga la inaga rabo markaa taa ayaa maxaan ku dhahday qodobada inoogu muhiimsan ah kolley imtixaanaadka iyo arjiyada marka la soo qaadayo guddiyaa jira heer qaran u magacaaban inaga heer dambe degmo marka la yidhaahdo guddi baa la sii sameeyey gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen dokumentiga meelaha aan ku dhajin doono aad arki doontaan ayay ku jirtaa iyo xoghayn oo ah cidda maxaan ku dhahday waraaqihiina iyo dokumentigiina loo geyn doono qofkii yaqaan dhalinyarta ahaa aqoontiisii soo tabcay xitaa meel uu ku tijaabiyaan haynin adduunka waa aragto hubka nooca u dambeeya marka la sameeyo waa la tijaabiyaa ma waxaa aragtay nin dhalinyaro aan aqoontiisa la tijaabinayn oo kale bila camal baan ahay doonta aqoontiisa ha tijaabiyo oo ha usoo habeen dhaxo waxa ay waqtiyadii dowladdii si aan barre fashistiga ahayd ee na soo kadeetay waxaan odhan karaa waxyaalihii laga faa'iido kula waxaa ka mid ah waxyaala ugu faa'iidada badnaa wuxuu ahaa in markii ay dalka la soo galay iyo garab ka heleen dadkii la tababaray oo qof kastaaba aqoontiisa isku garab taagay ciidamadii dalka soo galay meelba lagama doonintee waayo anigu istaamireey 4 statekii bayaanka 3 statekii 4 statekii baan ayaan galay hawsha iminka loo wado tababar baa waqtigaana lagu siiyey 5 sano ka soo wareegay marka waxay ahayd nolol aanan markii aan ku jiray aanan fahmin laakiin markan maxsuulkeedii arkay faa'iido badan yeelatay qasab ay ahayd in national service hal sano macallinimo la soo maro sano dugsiyeed laakiin markii dambe waxaan filayaa inay ahayd ID3 ID2 meelahaas la bedelay qof kasta waa inuu soo maraa 2 sanadood oo ciidamada ah tababarkeeda runtii ma gelin macallinimo anigu markaa ku shaqeeyay daadeeduna waa iska yara koobnay markaa waxa weeyaan anigu waxaan soo jeedinayaa markii la bilaabay iyo iminka ay tahay different baa u yara dhexeeya waxaan filayaa qof kasta oo secondary-ga ka baxaa inuu geli doono tababarkii militariga iyo shaqadii qaranka taasoo aanu arkay in loo baahan yahay gabagabadii munaasabadan lagu daahfurayay barnaamijka shaqo qaran ayaa iyagu halkaasi hadal ka soo jeediyay isla markaana ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay bulshada ku dhaqan Soomaaliland agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Ilka Case gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Maxamed Faarax waxaana ka mid ah hadaladoodii dhalinyaradi faraha badneed ka caban jiray cadaalad darro ama inaanay haysan cid gacan qabata waxaasoo dhan buu dawo ka yahay marka ay idin dhamaato 9 bilood geli doontaan 3 bilood iyo 9 bilood ee shaqada qaranka ka shaqeyn doontaan hay'adaha dawladda kala duwan iyo ciidamadaba waxaa noqon doontaan shaqaale iyo saraakiil ciidan dhammaantiin 1500 qofba marka ka fikirina yani in ciidan la wada noqonayo dhammaan waa intii ku habboon qof kasta wax uu soo bartay jaamacadda kaga soo baxay qof baa engineer qof baa doctor qof baa IT bartay qof baa business bartay qof baa caafimaad bartay dadkiisa caawiyo barnaamijkaana maro
marka muxuu ahaa leadershipka social well conflict resolution maxay tolaayeen wadanka shuruucda wadanka iyo qaab dhismeedkeeda waxaasoo dhan ba waxyaabaha la bari doono habliyeynamaba ah waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa khayr berbera gobolka saaxil gobolada kale khayraad badan oo ilaahay dhigay ayuu kaga nasiib badan yahay oo u baahanaya in laga faa'iideysto mashaariicda DP World mashaariicda kale ee horumarineed mashaariicda beeraha mashaariicda kalluumaysiga hadi feeroo yimaada ardayga oranaya kan imtixaanka adiga uga shaqeeyay ee buu haystaa adigii uga shaqeeyayna D baan haystaa ma si horta yaa uga shaqeey ku yiri marka hore shooda jirta innaka tariyeenay nagu dhicin cadaalad darra la sameeyay kii aniga shahaada iga sawirtay baa la qaatay anigoo shahaadaydii haysto wale horta yaa u soo kuula adiga marka hore waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul telefishinka Goobjoog magaalada Berbera